Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaamay meel walbo dunida dacaladeeda ka joogteen iyo waqti walbo idin tahay wanaagsan oo wacan waxaa idin rajaynaa farxad iyo caafimaad soo dhawaada asxaabta waxaan il wadaagaya jadwalkeena maalinlaha subaxii ilaa iyo duhurkii waxaa qaban doono isla joogi doonaa insha Allah quraacdeena halkaan kusoo diyaarsanayna quraacdeen saaka waxay ahayd quraac yar oo iska fudud iska simbal ah mal waxay ahayd mal waxa halkaan kusoo duwaya sidaas quruxda badan oo noogu soo baxaa mal waxa daaqaso iska saxdid si qurux badan oo ku soo baxaa qasuule ku xiran tahay gaaska xala naga dhamaaday dhuxula saaka ilse inta soo kaca dhuxul soo shitay mal waxayna kusoo duwaneynaa gaas inta laga keenay maba suganba dhuxusheeda soo shitay quraacdeena inta kusoo diyaarsanayna burjikada ku taala jikada dhuxul u diyaarsan tahay kaale iska arag waa soo quraacday marka caruurteyda quraac soo siistay kadib suuligana soo galay waxaa rabaa inaan iska dhaqo shanta xabshoobin daaqa saarneed isku soo dejiyay daaqada boorka ka soo jafay waa ku celinaa haddana barteeda soo dhigaa shanta shay ka soo dejiyay yaa sidaas oo soo kala habeeyay kadib dhulka iska dhaqaa maasira ujiga dhac ku siisana harta inta dhulka dhaqin inta dhulka iska dhaqaayna waa imarsanaana 5 daqiiqo kadib waa iska dhaqa ujiga ma ku daahanay team natural ahay aniga wax qasqas la dhaame isticmaali yaa ujiga iyo jirka intiis kala baqasqas kuma wanaagsana natural wanaagsan iyo skincare hadaadan awoodin waxyaalaha naturalka iska marso qasqas faa'iido ma lahan asigoo dambi ah hadana cudur u leeyahay ujiga iyo jirkana ka haleynaya yaa maaskigana hadda soo qasanayna waxaa ku soo qasaa aloe vera iyo serum ku soo qasaa kadib ujiga dhac ku soo siisana 5 daqiiqo kadib waa iska dhaqaa asxaabta iyo dulqaata hadda buuq iyo jaqaf ama qashaan guri dariskeen ahaa la dhisooya fiidiyogana subaxa cod saarooya marka buuq iyo waxyaalahaas soo darteeda u maqli doontaan iyo dulqaata idin leeyahay maaska halkan ku soo qastay ujiga dhac ku soo siisana ba naftaadana ka taxdir inta shaqada haysatid guriga hawshiisa haysatid hore isku qurxi ha is iloowin hooyo isku filan noqo nafteeda iyo gurigeeda iyo caruurteeda ku filan hooyo adag noqo yaa waqtigaaga yuusan meel cidla ah kaaga lumin waqtigaaga ka faa'iideyso waqtiga waxaa waay sida safety oo kaleete hadaadan adiga kala jarin asiga ku kala jaraa marka waqtigaaga yuusan maalayacni kaaga lumin social media maalayacni ha u soo galin waxaa wax aad ka faa'iideynin hadaawanin meelay faa'iido wax ka dan wax ka faa'iideynin hadaawanin waxaa wax ka faa'iideysid daawo yaa maalayacni yuusan waqtigaaga ka lumin waqtigaaga maareyso jadwal sameyso gurigaaga jadwal u sameyso hawshaada jadwal u sameyso wax walbo jadwal ay ku fiican yihiin jadwalka markuu ku saxmo adigana waqtiga isku hele gurigaadana wuu ku nadiifsan yahay yaa marka laakiin oo jadwal aadan lahayn wax walbo ayaacdo waay guriga dhan wuu isku qasmaa adeer waa daale stress dareeme farxad ma dareemaysid laakiin hada jadwal leedahay gurigaaga wuu ku hagaagaya subaxii hore nadaafad iska qabatid marka quraacda karisidba kadib qada iska karisid salaada duhurka dukatid iska nasatid 9 saac caruurtaada casharo fudud u karsatid salaada casar marka dukatid yaa casar yar u sameysatid waqti badan hele wax aad ku akhrisan kartid wax aad ku baran kartid xirfad aad ku baran kartid laakiin hadaadan jadwal lahaynin noloshaada maba ku hagaagayso adigana waa daali stressna kuma deynayo guriga iska soo dhaqay daashka dhiirigelintaas yar idinku talagalay qolkana soo galay firaashka ku soo bedelay asigana waa tirtiraa daaqadaha iyo muraayadaha ka soo tirtiray marka hore kadib firaasha
kasoo bedelay mid nadiif ah soo saaray waa soo tirtiraa asigana kadib dhexdheerta iyo daashka kale iska tirtiraa yaa gurigaaga haduu jadwal kuu leeyahay waxaan ku dhahay farxadaa dareeme farxad nafsiyana farxad u dareeme laakiin haddaadan jadwal lahaynin waa daalee stress kugu dhacay waxba kuma nadiifo waayaan waxba kuma hagaagayo dharka dhaqo hadaa jadwal u samaysatid guriga nadaafadiisa hadaa jadwal u samaysatid hadda maalin walbo wax lama tirtiri karo qolalka laba maalin kadib inaad iska tirtirtid hadaysan boor zaaid ah ahaynin daashka laakiin maal dhaaf waa inaad isaga tirtirtaa musqulaha maalin walbo waa inaad iska dhaqdaa iyo jikada daashka iyo dhexdheerta maalin dhaaf hadaysan wax lagu cuneynin oo jikadaada ay ku weyn tahay oo caruurta jikada cunta aad ku siisanaysid laakiin hadii lagu cunteynayo maalin walbo in la tirtiro qasab waaye alxamdulillah anaka jikadana way weyn tahay jikada la caruurta cuntada ku siiyaa guriga cunta maba la gaarsiiyo guriga intiisa kale maalin waa xaaqaa dhexdheertii barandada maalin waa tirtiraa jikadii musqusha maalin walbo waa dhaqaa qolalka haduu boor jirin maalin dhaaf tirtiraa haduu boor jirin laba maalin kadib waa tirtiraa haduu boor jirin waa xaaqaa maalin dhaafna waa tirtiraa yaa wax walbo jadwal ku fiican yihiin jadwal markay leeyihiin ma laga daalayo adigoo hawsha rabaa sii dhameyne laakiin hadaysan jadwal ku lahaynin dhib waaye jadwal inaad u samaysatid wanaagsan ugu horeyn aad dhafarka iska daysid hadaad tahay hooyo dhafarka waxaa na dilay anaka hadaa hooyooyin nahay dhafar waaye dhafarka hadaa dhafartid subaxdii maalintaas oo dhan moodkaaga wuu qasnaanaya waxba ma qaban kartid adiga dhan waa daalan tahay madaxa ku xanuunayo caajis miirana tahay laakiin hadaa dhafarka iska yareysid habeenkii waqti hore aad seexatid waxaa soo kacayso wixii adigoo fresh ah salaada subax isku duko salaad subax ka hor soo kac 10 saac iyo 42 rakac salaad sunnah duko iska tasbiixso iska duceyso salaad subax marka la gaaro salaada subax iska duko jikada hore ka gal caruurtaada quraac u sameyso quraac siiso 12 bar quraacdaada soo dhameyso caruurtaada ilkaha u cadiyay markay ku soo kacaan quraacdood siiso 1 saac iyo barba ka dhamaaw amba 2 saac kadib nadaafada iska gal iska nadiifi guriyaha naftaadana hore iska qurxi 5 saac iyo bar markay ku dhacdo qadadaada iska kari marka qada iska karisid salaadaada hurka duko caruurtaada qada siiso alaabta iska dhaqadine iyo jikada iska hagaaji kadib iska seexo 8-9 saac soo kac salaadaada casar isku duko cashiro fudud ah ilmahaaga u karso yaa jadwalkaaga markaas wuu ku toosayaa adii dhan waxaad dareemaysaa farxad iyo nashaad maalinkaas qof firfircoon ahaanay laakiin hadaadan jadwal lahaynin waa daali waxba kuma qabsamaayo hooy daalana noqonee stress kuga dhacayo wax walbana dhafarka sabab ah hadaa dhafar iska yareysid oo jirkaaga hurdo ku filan oo helo waxaa noqonee hooy fresh ah oo wax walba qaban karto faraxsan noqonee dhafarka marka u horeys dhafarka iska jar haduu canug yar ku joogo oo hurdeynin habeenkii akseexo sa hurdaynalka ka demi ee hoosta gali asaa ku hurdaayo yaa hooyooyinka hadaa anaka hooyooyin nahay waxaana dilaya ugu horeeya dhafarka waaye dhafarka iska yareeya baayaal waxaa rajeynaa inaad ka heli doontaan dhiirigelintaas yar aa idinku talagalay aa ka boga doontaan aa wax ka faa'iidi doontaan yaa subscribe soo dhaha janaalka wax badan iga faa'iidi doontaan insha Allah qolka isku soo hagaajiye isku soo carfiye sida u jeedeenba hadal dhiirigelina idin galay kadib qada karsa jikada soo aadnay qadadeena karsayna malaaya inta ku soo diyaarinaa
malaay soo qasa xawaaji toon kabsar caleen cusbo waxyar maraq digaag isku soo qasaa kadib ansalaatadana jarjare ayadana waa dhaqaa biyo ku qasaa kadib malaay intuu isi qasmaayo isdhexgalaayo bariiska inta kusoo dalacaa saliid basal isku soo shiilaa kaarooda kor ugu soo daraa waxa karoota weyn oo 3 xabo soo hoolay kadib bariiska biyo ku qasay waqti hore iska qasay biyo la ila cabaar waa soo miiray waa soo dhaqay shaandhamirka ku soo miiray waa soo shiilay bariiska si fiican u soo shiilay kadib biyo kuleel kor ugu soo daraa intuu noo sii karaayo bariiskeena daboolka saara inta uu soo karaayo malaayga duwaa biyo miira liin bambeel ahayd cabitaankeena waa miira yaa kale iska arag marka hawshaad iyo iska qabatid yaa adidan waxaa noqonay qof happy ah oo faraxsan oo fresh ah bariiskana wuu noo soo karay yaa furfuro ku soo baxay waqti hore soo qasay intaana karinin cabaaro biyo ku qasnaa kadib malaayana inta ku soo dubaneena marka malaay soo dubo biyana cabitaanka soo miiraneena waa qadeehena Allah noo barakeeyo inta haysanina Allah siiyo Allahumma aamiin irsaaq xalaal ah Allah siiyo anagana Allah noo barakeeyo asxaabteyda aad u mahadsantihiin sida boqol ii gaarsiiseen ka badan oo idin rajaynaa inta subscribe soo dhahday inta isoo support kareysa asxaabteyda aad u mahadsantihiin inta daawato sidoo kale waa idinka mahadcelinaa idinkana cabitaankeena sokor ku soo darsaneena waa soo miiranay waa soo sokor ku soo darsaneena barafkeena Allah noo barakeeyo inta haysanina Allah siiyo kadib markaa soo qadayno qadada caruurta soo siisto jawi degan kaligay halkan ku qadaynaa sariirteeda ku qadaynaa bye bye asxaabta sidaan iyo nabadgelyo video waxaan ku kulmeyno nabadgelyo bye bye